arrinka horena xaal marinteedii baan ugu fadhinaa ninkaas sirdoonka qarankina reer buu ka dhashay haddii maamul iyo nidaam la raacayna madaxweyne adigaa magacaabay hadday isagii reernimadiisa ku kooban tahayna dee annagaa ka xisaabtami doona reer buu ka dhashay wasaaradihii qaylaa ka soo yeedhaysa shaqaalihii xasuuq bay sheeganayaan boqol wax baa la sheegaya arrintaas saaka ka hadlaya waxa weeyaan taliyaha sirdoonka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland taliyaha sirdoonku wuxuu taargetgareeyay oo si bareera oon gabasho lahayn uu weeraray ciidamada sirdoonka wixii kaga jiray beesha Habrawal 140 nin oo saraakiil iyo ciidan bay isugu jira oo sirdoonkii qaranka ah ayuu dil ku xukumay dilka uu ku xukumay waxa weeye caalamka waa ka mamnuuc ninka sirdoonka qaranka ah oo sirdoonka dawladda ah in magaciisa iyo sawirkiisu inay baxaan 140 nin buu bacadka u waray 140 ka kiyo bacadka u waray waxa ahayd qarankii Soomaaliland oo la dumiyay ay ka dhigantay wuxuu haddana ku daray inuu si bareera saraakiisha u xidhxidho wuxuu ku daray inuu seelada ku xareeyo waxa mamnuuca nin sarkaala hadduu xataa dembiba galaama dhishbiliinba loo xidho in seelada la geeyo silsilad lagu jebiyo waxaa laga wada dharagsan yahay maanta baraha bulshada inay saraakiil ciidanka sirdoonka iyagoo silsiladaysan inay baraha bulshada oo laga yaxayo feedhaqaawan oo la deldelay inay baraha bulshada yaacayaan sawirradooda adduunyada Soomaaliland intay jirtay kamay dhicin oo arrinaan weli ka dhicin waa kow haddana saraakiil baa xidhan ninka deldelani ka mid yahay waxaan leeyahay taliyaha sirdoonka haddaa reer u ceel qabto adiguna halka madax ka ahaan maysid rubban ku sheegaynaa adeer madaxweynaha qarankana waxaan leeyahay qalinkaagu ninkuu magacaabay in marka reer xasuuq lagula dhaqaaqo haddaanad raalli ka ahayn arrinkaa jooji arrintaa madaxweyne haddaana doonin inaynu ku kala fogaano oo lagu kala dhaqaaqo inaad weliba raggaad soo magacawday haddana xasuuq la dhex galan Habrawal oo ninba meel oo ciidankii maanta yaa difaaca qaranka yaa difaacaya waaye marka ciidankii qaranka sidaa loo galo ee sirdoonkii qaranku maanta markaasaa weliba wuxuu sameeyay ninka jaamac la yidhaa isagaa ka jawaabi doona waxa sababta colaadan halku ka keenay isagaa ka jawaabi doona wuxuu weliba sameeyay raggu sidaa bacadka ugu wadho haddana weliba transfer bedel ugu diray gobolada bari oo si loo laayo weey taana adiriyeel bay ninka xagtimi gaadho jaamacow aday dushaada saaranta waxaa leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland qaranka madax rag buu nagu joogaa waxaanu tabanaynaa waa halkeeda tabashadayadu waa halkeeda iyo wixiina soo kala maray intaad xukunka doonaysay madaxweyne laakiin dhaqdhaqaajinta imka bilaabantay tu aanu reer ahaan dhageysanayno yeelayn maaha saraakiisha inta xidhan hadda faraha laga qaado arrinka horena xaal marinteedii baan ugu fadhinaa ninkaas sirdoonka qarankina reer buu ka dhashay haddii maamul iyo nidaam la raacayna madaxweyne adigaa magacaabay hadday isagii reernimadiisa ku kooban tahayna dee annagaa ka xisaabtami doona reer buu ka dhashay oo waxa nagaga maqan isagaa dee sheegi doonaa inta xidhan imika oodaha laga qaado 100 kaa cishana wixii dhib dhacay intaasoo telefoon baa nagu soo dhacday oo mid walba waxaan warbalukaadiya wasaaradihii qaylaa ka soo yeedhaysa shaqaalihii xasuuq bay sheeganayaan boqol wax baa la sheegaya waxa kale oo dhan waa la isaga iman doonaa imika raggaa xidhanna oodaha laga qaado ninkaa jaamacna ama waa nimaad madaxweyne adigu magacawday diina kala gaadh 100 mitir buu jiraa madaxtooyada xafiiskiisu oo wuxuu waxa ku sameeyay waajibkeeda hala mariyo sharciga hala mariyo maxkamadda la hor keenay wuxuu yiri baa markuu meesha yimid reer baa ka buuxa waxyaabaha la sheegaya wax macquul ma aha hadalka waxaan ku soo gabagabeynayaa madaxweyne jaamac taliyaha sirdoonka adaa magacaabay nikala gaadh inta ay ka badan waa dulmi lama qaadi karo anagoo qarannimada ilaalinayna anagoo xumaan ka shaqeynay ya laakiin adeer nama qabata arrinkaas nimadaasi adeer waa xoogii dalka warraggii dalka xoreeyay rag ayaa dhalay
walaaladood baa dalkan xoreeyey adeeradood baa xoreeyey aabbayaashood baa xoreeyey wixii siyaad barre laga diiday adeer in maanta daldalaadi ka dhacdo xaafadda 26 juun dhexdeeda yaa koodbuur dhexdeeda in daldalaadi ka dhacdo oo social media la wareejiyo arrinkaasi wax soconaya oo dhageysan kareen ma waxa la madaxweyne arrinta si degdeg ah wax uga qabo